markii ugu horeysay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho waxa uu bilaabay inuu shaqeeyo xilliyada habeenkii kadib markii lagu guuleysay in la hirgeliyo qalab casri ah oo sahlaya in diyaaraduhu ay xilliyada habeenkii ay si toos ah ugu soo degi karaan garoonkaasi. garoonka diyaaradaha Muqdisho waxa loogu magac daray Aadan Cabdulle Cismaan waa madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya kadib markii xurriyadu ay qaadatay Soomaaliya 1960kii waa garoon caalami ah waxaana ku yaala koonfurta magaalada Muqdisho waxa ka soo degi jirtay garoonkani shirkado diyaaradeed oo heer caalami ah oo ay ka mid ka ahaayeen Lufthansa oo Jarmal ahayd Airflot oo Ruushka iyo Somali Airlines iyo diyaarado kale garoonka waxa uu ka soo kabanaya dayac iyo burbur uu ka soo gaaray dagaalada sokeeye ee dalka soo maray tan markay burburtay dawladda dhexe ee Soomaaliya walow aanay jirin adeegyo buuxa oo heer sare ah haddana waa uu shaqeynaya garoonka diyaaradaha Muqdisho mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ayaa dadaal u galay sidii garoonka u noqon lahaa mid garoomada caalamka la jaanqaada gaar ahaan kuwa geeska Afrika ku yaala waxaana mas'uuliyadda garoonka lagu wareejiyay shirkado gaar ah waxaana ugu dambeeyay hadda oo gacanta ku haysa garoonkaasi shirkad laga leeyahay wadanka Turkiga halka markii hore ay maamuli jirtay shirkad laga lahaa wadanka Koonfur Afrika muddo ka badan 20 sano kadib duulimaadyo caalami ah ayuu sameeyay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho waxaana haatan isaga kala goosho diyaarada ka shaqeeya Soomaaliya iyo dalalka kale caalamka oo Yurub ay ka mid tahay haddaba si looga dhigo garoon heer sare oo caalami ah waa in loo yeelo dhammaan waxyaabaha looga baahan yahay adeegyada garoonka waxa hore u jirtay in diyaaraduhu ay soo degi jireen oo qura maalintii waxa si dadaal dheer kadib lagu guuleysay in duulimaadyo xilliyada habeenkii ah uu ku darsoomo garoonkaasi kadib markii garoonkaasi lagu xiray leerar ifiya dhabaha ay ka soo degaan diyaaradaha waxa ka qayb galay munaasabada lagu dahafurayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo isagu ku booriyay mas'uuliyiinta garoonka diyaaradaha Muqdisho dadaalka ay u galeen sidii loo horumarin lahaa adeegyada garoonkaasi wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa sheegay in qalabkan dawladda Soomaaliya ay soo gadatay uguna talagashay garoonka Aadan Cadde in lagu xiro si diyaaraduhu xilliyada habeenkii ay u soo degaan taasi oo qayb ka horumarka garoonka uu ku talaabsanay sanadihii ugu dambeeyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo hadalkiisa sii wata ayaa uga mahad celiyay wasiirka iyo kooxdii kala shaqeysay hawshaasi waxa uu cadeeyay in cidna aysan taageero ka helin taasina ay tahay guul ay gaartay Soomaaliya ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa kula dardaarmay shaqaalaha garoonkaasi inay ilaashadaan sidoo kalena waxa uu soo jeediyay madaxda garoonkaasi in dawladda Soomaaliya u soo gudbiyaan wax allaale wixii baahiya ka jira adeegyada garoonka haddaba waa guul Soomaaliya u soo hooyatay in garoonka Aadan Cabdulle Cismaan ee magaalada Muqdisho uu shaqeeyo 24 saacadood taasi oo keeni karta ifafaalooyin muujinaya inuu la jaan qaadi karayo garoomada kale caalamiga ee dunida ku kala yaala